waxaa dhalay aabba sanamka caabudo. Wuxuu ku soo barbaaray guri sanamka lagu caabudo. Wuxuu bartay diintiisa Hinduuska, khaasatan kooxdiisa Brahmiyada. Wuxuu ka qalin jebiyey looyarnimo. Looyarnimadaas ayaa u sahashay inuu wax badan ka ogaado dulmiga ay Hinduuga ku hayaan dadka aan raacsanayn iyaga. Waxaa madow ka galay saxnimada diintiisa Hinduuska. Wuxuu baaritaan ku sameeyey muslimiinta oo aan kala saaraynin hantiile iyo faqiirba. Barashadii Islaamka ayuu jeclaaday. Baaritaan kadibna wuxuu shaaciyey inuu qaatay diinta Islaamka. Arrinkaas wuxuu dhabarjab weyn ku noqday Hinduugii sanam caabudka ahaa. Magaciisu waa Heeralaal Gandhi, wiilka uu dhalay halgamaagii reer Hindiya, Mahatma Gandhi, kaasoo u halgamay siduu waddankiisa uga xoreyn lahaa gumaysiga Ingiriiska. Heeralaal Gandhi markiisii hore uma fiirsan jirin iska hor imaadyada diintiisa Hinduuska. Wuxuu xoogga saaray waxbarashadiisa ilaa uu ka qalin jebiyey looyarnimo. Wuu guursaday, wuxuuna aad u jeclaa looyarnimada iyo sugaanta. Shaqadiisa ayaa u sahashay inuu wax badan ka ogaado arrimaha bulshada ee xun ee waddankiisa ka jiro, iyo dulmiga xad-dhaafka ah ay Hinduuga ku hayaan dadka aan raacsanayn iyaga. Dulmigaas ayaa ku qasbay Heeralaal inuu raadiyo wax badan oo xaqiiqo ah. Horeyna wuxuu u daalacday kitaabo laga qoray Islaamka. Wuxuu dareemay hortiisa inuu ka soo iftiimayo shay xaq ah. Markii uu bilaabay inuu raadiyo xaqiiqada, ayuu go'aansaday inuu shaaciyo islaamnimadiisa. Kadib markuu akhriyay aayadda Qur'aan ee ah ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. qofkii raadiyo diin aan islaam ahayn laga aqbali maayo, aakhirana wuxuu ka mid noqon doonaa kuwa khasaaray. Markuu shaaciyey islaamnimadiisa kadib, magaciisana wuxuu ka dhigtay Cabdullaahi Gandhi. Wuxuu fuulay mimbarka, wuxuuna jeediyey kelimad uu ku cabirayo wuxuu dareemayo oo farxad iyo deganaan ah kadib markuu islaamay. Maalinkii Jimcada ahayd, masaajidka weyn ee Bombay waxaa soo buux dhaafiyey kumanaan kun oo muslimiin ah, kuwaasoo hambalyo u waday walaalkood Cabdullaahi Gandhi, ilaa ay farxad awgeed la xambaareen. Heeralaal Gandhi markii uu islaamay kadib, warbaahinta ayaa baahisay islaamnimadiisa. Markaasna waxaa ku bilowday duulaan xooggan oo uga imaanayay dhanka aabihiis Gandhi iyo saxafiyiinta iyo xisbiyada sanam caabudka ah. Heeralaal Gandhi wuxuu u istaagay difaaca diintiisa Islaamka ah, wuxuuna yidhi, kama shalaynayo mana ka xumi inay qaatay diinta Islaamka ee saxda ah sida ay sheegeenba. Allana wuu og yahay, markhaatina wuu ka yahay arrinkaas inaan u sameeyey ajiibid aan ajiibayo yeermada xaqa ah. Wuxuu ka dalbaday qof walba oo duulaanka u ahaa isaga inuu fahmo Islaamka kana ogaado xaqiiqo badan inta uusan soo duulin ka hor. Dadkan haddii ay rabaan inay ka takhalusaan noloshan qaraar, waxaa u wanaagsan si aan xagjirnimo ahayn inay u dareesayaan diinta Islaamka, xaqiiqada dhabta ah ee walaalnimada Islaamka, xitaa haddayna qaadan, kadibna ay cadaalad u sameeyaan. Natiijadani u soo bandhigaan innagii ummadda Mahatma Gandhi, kadibna caalamka bari iyo galbeedba.